Asalaamu calaykum kusoo dhawaada janaalka Caaqil Taj. Muuqaalkani maanta waxaan rabaa inaan isla sameyno login page-kan anigoo isticmaali doona marka HTML iyo CSS. Daabasho wanaagsan. Okay, waxaad soo furtaa marka editorka aad isticmaashid. Aniga hadda waxaan isticmaalayaa marka VS Code. Halkan marka waxaa igu diyaarsan marka files oo aan rabo marka inaan ku qabto project-kaani. Ugu horreyn waxaa ii samaysan folder oo igu jiraan images aan isticmaali rabo intaan ku jiro marka coding-kan. Waxaa kaloo ii samaysan marka HTML file ah iyo file kaloo CSS ah. Waxaad soo furtaa marka file-kii aad HTML ku qorleed. Waxaa leeyahay kale shift number 1 calaamad cajiibka markay ku soo baxdo enter dheh. Waad aragtaa marka waxaa ii qormay marka basic-gii ama section-kii oo HTML-ka start up-ka camal u ahaa. Title-ka magac ayaan ka bedelayaa. Then waxaan sameynayaa marka wax loo yaqaano section kaasoo ID-ga ugu dhiga marka login page. Kadib waxaan sii sameynayaa marka container. Waxaan sii gelin doonaa marka laba div ah oo aan ugu talagalay marka midka koowaad waxaan u bixinayaa lefty. Okay, dhexdiisa gal left side dheh. And then mid kale waxaan sameynayaa marka right-ka oo right side aan dheh. Intaan ku jirno marka muuqaalkaani ama coding section-kaani waxaan aad u isticmaali doonaa marka wax loo yaqaano Flexbox. kaasoo ka mid ah marka waxyaabaha badankooda inta CSS kala joogo la isticmaalo. Okay, style file-ka iga soo furo. Waxaa ii diyaarsan marka haddeertaan fonts aan soo import garay Google-ka aan keenay, Google Fonts ka keenay. Root-kan waxaa igu jiro kalarada aan isticmaali lahay. Okay, section-kan kalena waxaa igu diyaarsan wax loo yaqaano in aan ka bixiyo default-iga margins-ka jiray iyo padding-ka jiray iyo waxaas dhan ka bixiyo. Okay, font family-ga isticmaalayo waa taaya. Okay, inta kalena waxaa waaye waxaa kaloo samaystay div kale loo yaqaano Flexi kaasoo display Flexi aan geliyo. Waxaan u isticmaali doonaa marka meel walba aan u baahanahay marka display Flexi. Okay, hadda waan run gareyn doonaa marka. Waxaa muhiim ah marka inaad soo degsatid marka extension loo yaqaano live server and then waxaa leeyahay open live server. hadda project-iga marka hadda waa ujeedaa wuu soo display gareysmay. waxaa noo samaysan marka laba div oo noogu qoran marka left side-ka iyo right side-ka. marka waxaan ku xiraynaa marka CSS-keena HTML file-ka and then container-kana waxaan ka dhigayaa marka div Flexi class la dhahay ayaan wacayaa. waad ujeedaan marka hadda Flexi ayuu noqday oo waa soo garab dhigmay camal. Okay, and then CSS-ka ayaan tagayaa marka waxaan wacayaa marka waxa loo yaqaano ID-gii oo ahaa login page. height-kiisa waxaa leeyahay 100 VI ka dhig oo scroll dhan ma u baahni macnaha. overflow-ga waxaa ka dhigtaa leeyahay marka hidden. waxaan wacayaa marka container-kii right side-kiisa waxaa ka dhigtaa dhaha Flexi 1 and then ma soo muuqanayo laakiin qaybta kale haddaan bedela ayaad arkaysaa. laftigana waxaa ka dhigayaa Flexi 1. waad ujeedaan marka shaashadda waxay ka kala qabsadeen marka 50% iyo 50%. hadda marka waxaan soo gelinayaa ama waxaan soo import gareynayaa marka image-ka aan ugu talagalay marka qaybta right side-ka aan u isticmaalo. waad aragtaan marka hadda waa soo geliya ma arki kartid laakiin haddii uu height-ka markaan siiyo dhahe markaas ayaad arkaysaa. qaybta laftiga marka 100 V height ayaan ka dhigay. sawirka waad ujeedaan wuu soo muuqday. background-kiisa cover ka dhig ayaan leeyahay. position-ka background-ka center ka dhig and then waxaa ku darayaa marka repeat-kana none ka dhig ayaan leeyahay. Okay, border radius-kana waxaan leeyahay 50 pixel rounded ka dhig. Okay, waad aragtaan waan sameyn hadda image-ka container-ka ayaan u laabanayaa marka the whole container waaye. Okay, padding waxaan sameynayaa marka 20 pixel oo meel walba ah 40 gees macnaha. Okay, waad aragtaan marka wax yar oo soo sigtay meel walbana cirifka ayuu ku soo sigtay marka. waxaa dareemayaa marka maadaama 100 V height aan dhahay oo 20 pixelna isticmaalay meel walba ah waxaa dhici kara marka overflow wax la dhahay. si aan marka ugu taxadirno waxaan sameynayaa marka height-ka ayaan u laabanayaa. waxaan dhahayaa marka height waxaa tiraahdaa cal oo calculate ah. waxaa leeyahay 100 V height oo laga jaray kaasoo korna 20 pixel ayaa ku jiro hoosna 20 pixel ayaa ku jiro. hadda marka dhererka wuu saxan yahay. HTML-ka usoo laabo marka waxaan soo import gareyn doonaa marka loogadi laftiga dhexdiisa ayaan waxaan ku sameyn doonaa div loo yaqaano logo. waxaan kaloo sameynayaa marka image-ka inaan soo import garay image tag. logana waa meeshaan alter. Okay, h3. Okay, logada marka magaceeda ku qor halkan. waad aragtaan marka hadda way is hoos yaaliin. waxaan isticmaalayaa marka Flexi display Flexi oo ahay div Flexi.
classki ii diyaarsanay ayaan ka wacay macnaha marka CSS ka tag pathka marka si sax u soo raac markaas container lefty kadib logo sii dheh okay waxaan leeyahay marka align item center so center u noqdo and then waxaad leedahay gaabka ama spaceka u kala dhexi kara labadooda marka one rem dheh okay aad inay badan tahay ayaan u maleeyaa marka waxaan ka dhigayaa 0.5 rem okay HTML ku soo laabo marka waxaan sameynayaa marka div aan ugu magac daray middle classkeeda middle waaye waxaan kaloo sameynayaa div kale kaasoo aan u magac daray channel magaca channelka kale ayaan ku qorayaa waxaan u baahnaa marka inay noqdaan wax loo yaqaano display flags waxaan wacayaa marka classkii oo ahaa div flags waad aragtaan waa soo dhinac dhigmeen marka aniga sidaan ma rabo waxaan aadayaa marka CSS ka okay marka waxaan tagayaa leftiga waxaan leeyahay marka flags direction column ka dhig si ay u istaagaan macnaha okay waad aragtaan justify content waxaa leeyahay space between mid walba macnaha space lamid ah u dhexeeya midka kale and then marka HTML ku soo laabo okay middle-ka dhexdiisa marka waxaan samaystay div loo yaqaano innerkaas waxaan sii sameeyay div kale aan ugu magac daray marka content and then qoraalka aan raba ayaan halkan ku qorayaa marka okay marka waan dhameeyay hadda qaybta contentiga waxaan gudbayaa marka formki form ayaan isticmaalayaa actionkiisa marka ma u baahnay hadda hash iska dheh waxaan sameeyaa marka div loo yaqaano form group okay label ayaan wacay oo emailka aan ugu talagalay marka ugu horeyso okay input ayaan ku xijiyay marka oo aan emailka ugu talagalay typekiisa email waaye okay intaan la koobiyeysa marka si aad u isticmaashid passwordkana waa koobiyey okay waxaad ka bedeshaa marka magacyada emailka ah u bedel marka password typekana password ka dhig okay waxaan kaloo sameeyay marka div kale oo form group ah and then waxaa kasii wacay marka another div kale oo checkbox aan dhahay okay waxaan input dheh marka typekiisa waxaa waa checkbox and then labelkan waxaan ku qoray remember me okay and then waxaan sameeyay marka anchor tag oo classkeeda dhaha marka forgot password ayaan kusii qoray okay waxaan u baahnaa marka labadooda inay noqdaan marka flaxi div flaxi ayaan leeyahay marka waad aragtaan waa is dhinac dhigmeen okay hadda CSS ayaan u gudbaynaa marka marka CSS ka timaadid marka waxaad leedahay marka container left middle innerka waxaan sameynaynaa marka minimum width ha ahaada leeyahay innerka 300 pixel and then waxaan u laabanayaa marka middleka si aan display flags ugu dhigo div flags ayaan ka wacay classka ahay and then CSS soo laabo waxaan rabaa marka qaybta innerka inaan center ka dhigo marka justify content center waad aragtaan marka centerka ayuu imaaday okay waxaan sameynayaa marka waxaan aadayaa marka qaybta contentiga margin bottom waxaa leeyahay turem inay kala sigtaan ayaan u baahnay contentiga iyo formka waad aragtaan marka way kala sigteen waxaan wacayaa marka tagi inputka ah typekiis waxaa leeyahay email waaye another input kale ayaan jiran dhaha typekiis password ah and then waxaan sameynayaa marka widthkooda waxaa ka dhigtaa 100% hadaa dhaho marka wuxuu full ku noqonayaa 300 pixel waxaan sameynayaa wax loo yaqaano waxaa leeyahay margin 5 pixel oo top ah ha baxo rightki 0 ka dhig qaybta hoosena waxaa waaye 20 pixel marka ugu dambeysana waxaa waaye lefty waaye 0 waaye waxaan sameynayaa marka padding 15 pixel si aan dhahay border radiuska waxaa ka dhigtaa leeyahay 8 pixel borderki waxaan sameysaa leeyahay 1 pixel oo solid ah colorkan aan kor ku soo xusaynaysi okay input fox dhe marka borderka waa solid waaye colorkiisa waa color primary ah markii focus kala saaraan rabaa inuu sidaas noqdo macnaha 1 pixel oo solid ah outline-kana waxaa tiraahdaa none oo important ah waad aragtaa markii focus la saaro marka blue ayuu noqonayaa meeshii ugu dambeysay marka defti ugu dambeystay oo lahaay form groupka oo ku jira marka checkbox remember waxyar class name-ka ayaan ka bedelayaa and then waxaa leedahay justify content space between way kala sigteen waad aragtaan margin bottom marka waxaa tiraahdaa 1.5 rem
marka waxaad u laabataa marka HTML kaaga waxaan sameynayaa marka bottom oo classkiisa btn aan dhahay sign in ayaa leeyahay css ku soo laabo marka width waxa waaye 100% padding of 20 pixel oo meel walba ah border waxaad tirahdaa none and then background colorkiisana waxaad tirahdaa primary text colorkana waxaa ka dhigtaa white font size na waxaa ka dhigtaa marka 1.2 rem and then fontig weightkiisana waxaa ka dhigtaa bold waxaan u sameynaynaa marka hover effect btn marka hover opacity waxaa ka dhigtaa marka waxaan leenahay 1.9 waad aragtaan markii hoverka la saaro inuu isbedel sameynayo bottomka colorka hore ahay ma sii ahaa okay contentiga marka difti contentiga ahaa aan rabaa inaan wax ka bedelo wax yar marka qaybtan soo koobiyeyso wax soo fiirsaa marka h-ka wuxuu ahay okay h1 ayuu ahay waxaad tirahdaa marka colorka secondary color ka dhig font size-ka waxaan ka dhigayaa 2 rem font weight-ka 700 margin bottom-ka waxaad tirahdaa 5 pixel okay qaybtaas waxaa waaye qaybta oo h1-ka and then paragraph-kana waxaa rabaa wax yar inaan ka bedelo colorkiisa waxaad ka dhigtaa marka colorkan okay waxaan sameyn doonaa marka last section ama qaybta ugu dambeysay waxaad tirahdaa marka div waxaan u magac daraa marka bottom action qoraalka ku qor lahaa marka waxaan ka soo koobiyeynayaa design-ka Figma ahay waad aragtaa marka waa soo koobiyeystay display fluxin waan ka dhigay okay waxaan dhahayaa marka margin top 2 rem oo waxaan rabaa bottomka inuu aad ugu soo sigto justify content in center ka dhig boom waad aragtaan centerkana waa imaaday muuqaalka part 1 intaan ayaa ku soo gabagabeyn doonaa part 2 waxaan sameyn doonaa sida aan ugu dhigi lahaa marka login page-kan mid responsive oo lagu isticmaali kara xataa mobilada okay waad ku mahadsantahay daawashadaada muuqaalkeenana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh